بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كان امتحانها فصل لبيو تobnaad cutubka koowaad casharkiisii labaad waa hordhici kani insha Allah waan ka soo shaqeyn doonaa waa hordhac inaad aragtaan ayaan ugu talagalnay waa kii Somali Mathematics like Sara Bismillahir Rahmanir Rahiim casharkeeni imtixaanaha su'aashii koowaad baan ka shaqeynayaa in leeydi soo saar ama tirada ku xigta sheeg waxa dhaana marka hore 9 xagee noga timid waxa dhaana waa 6 oo loo geeyay 3 waxayna la mid tahay 9 14 waxa dhaana waxay ka timid waa 9 oo loo geeyay 5 markasta labaan ku daranay 3 iyo 2 ku darnay 5 bay noqotay 21 waxa ka timid 14 oo loo geeyay 7 30 waxa noga timid 21 oo loo geeyay 9 bay noqonaysaa 41 waxay ka timid waa 30 oo loo geeyay 11 markasta labaan ku daranaa su'aashana la weydiiyay markaa su'aasha aan u baahanayna waa tan waxaan leeydi maxaa loo xiga 41 waxa dhaana waxay noga timid 41 oo loo geeyay 13 waxa ka timid 11 oo loo geeyay 2 waa 13 markasta labaan ku daranaa marka jawaabtu waxaan helnay 4 yani konton iyo 4 baan helnay waad fahantaan oo malinaya waa kii Somali Mathematics oo hadii aad fahanteen like saar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bismillahir Rahmanir Rahiim waa casharkeeni imtixaanaha waxaan sameeynaa waa su'aashii labaad baan ka shaqeynayaa waxaan leeydi maxaa noogu xigay 21 markaan ka shaqeynaa waxaan leenahay tusaalaan sagaalka waxay nooga tid baan leenahay waa 3 oo loo geeyay 6 eeg marna 6 baan qaadanaa marna 3 isweedaar baan u qaadanaa 3 6 u geey waa 9 9 3 u geey waa 12 eeg marna 3 baan qaadanaa marna 6 12 u geey 6 waa 8 3 u geey waa 22 6 u geey waa 7 marka su'aashii aan raadinayno waa 7 waad fahantaan ma marinaya waa su'aashii labaad waa casharkii imtixaanaha waa fasalka 12aad cutubka koowaad casharkiisii labaad weji ee imtixaanaha noo ahaa waa dhowrkii su'aalood aan ka shaqeynay waa kii Somali Mathematics waxaan leenahay page-kan iyo YouTube-ka waa inaad noo subscribe-saan page-kan follow soo dhahdaan insha Allah casharadan iyo casharo kale fara badan waad ka helaysaa xisaab dhamaanteed say tahay waad ka helaysiin like Sara insha Allah soo follow بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشني saddexaad ayaan ka shaqeynaa ee ahaa taxanaha su'aalihii fasalka 12aad cutubka koowaad Siraas and Squares waxay ahayd waxaan leeydi waxaad sheegtaa tirada noogu xigta 1296 bay ahayd su'aashu marka waxaan leenahay marka ka shaqeynaa waxaan dhahnaa 6 oo lagu dhifto hal waa 6 6 ku dhifo waa 6 iyo 30 6 iyo 30 ku dhifo waa 200 iyo 6 iyo 10 6 ku dhifo 200 iyo 6 iyo 10 waa 1296 marka su'aashii la weydiiyay waxay ahayd 6 ku dhifo intaas marka waxaan helnay waa 7776 waad fahantaan oo malinaya waa kii Somali Mathematics oo nila assalaamu calaykum waraxmatullaahi Bismillahir Rahmanir Rahiim waa kii Somali Mathematics oo casharkeeni imtixaanaha ee fasalka 12aad su'aashii la weydiiyay waa tii afraad waxay ahayd waxa noogu xiga 30 marka qaacidada baan isticmaalnaa waxaan leenahay natural number baan isticmaalnaa 1 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waxayna la mid tahay 6 natural number baan isticmaalnaa 2 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waa 9 3 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waa 14 4 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waa 22 5 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waa 30 marka su'aashana la weydiiyay waa 6 oo la jibaaray oo loo geeyay 5 waa 41 marka 6 marka jibaarna waa 6 iyo 30 u geeyay 5 waa 41 natural baan isticmaalnaa adiga arkay 1 2 3 5 ilaa 6 ma xagana 5 ma qaadanna waa kii Somali Mathematics oo nila assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bismillahir Rahmanir Rahiim waa casharkeeni imtixaanaha waa su'aashii shanaad ee fasalka 12aad waxaan leeydi waxaad soo saartaa missing numberka maqan ayaan la weydiiyay marka numberka waxaa leeydi waa 360 dash baa leeydi 72 18 3 marka qaabkan ku soo saarno waxaan dhahnaa 3 oo lagu dhiftay hal waa 3 yani 3 oo lagu dhiftay 2 waa 6 3 oo lagu dhiftay 6 waa 18 lagu dhiftay 4 waa 72 oo lagu dhiftay 5 waa 360 360 oo lagu dhiftay 6 waa 2160 marka 2160 weeji jawaabteen waad fahantaan malinaya waa kii Somali